ciidanka BSF ayaa ku sii qulqulaya xaruntooda weyn oo ku taala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Laba maalin ka hor duleedka magaalada Boosaaso si gaar ah halka lagu magacaabo laag konton askari oo ka tirsanaa ciidanka BSF iyo ciidan BMBF ka tirsan ayaa dagaal uu ku dhaxmaray, waxaana Puntland ay sheegtay inay la wareegtay gaadiidkii dagaal oo ay wateen ciidanka xilligaas. wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidan ka tirsan BSF oo deegaanada Puntland saldhigyo ku leh ay ku sii qulqulayaan magaalada Boosaaso si gaar ah taliska weyn ay ku leeyihiin magaaladan. BSF ayaa la sheegay in dhaqaaqay ciidan saacadihii u dambeeyay ee ka waday Boosaaso. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga. tan iyo markii uu dagaal ku dhaxmaray ciidanka Puntland duleedka magaaladaas, Puntland ayaa sida la sheegay si gaar ah hogaamiyaha maamulkaasi Siciid Dani waxa uu sheegay inuu haatan diyaar u yahay inuu dib u celiyo gaadiidkii ay wateen ciidankii BSF ee weerarka qorsheysnaa ay ku qaadeen ciidanka Puntland, walow BSF ay sheegtay inay ku adkeysanayso in gaadiidkooda xoog ama xeelad ay ku soo ceshanayso midkood. wixii warar ah soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu ay beedmo.